nuxurka warkaygu waxa weeye dalkani badbaado u baahan yahay waxaanan qabaa in yacni shir wada jira la isugu yimaado oo laga heshiiyo doorashada dalkani siday u dhici lahayd oo si wada jira inta loo heshiiyo doorasho la wada og yahay inay dhacdo lana wada hawlgeliyo inta nuxurkayga horta waa intaa sababtaa waxa weeye dareenkan qaaday baa wuxuu yahay inayna arrintaa ka soconin aqalkaas hadda xeerarka hadda hor yaalla golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka ee aad durtay maxaad u sababaysay inaad xeerarkaas durto horta lifaaq ku xiran maaha ma hesheen warkayga qoraalka waan aragnay guddoomiye qoraalkii guddigii wadajirka uu soo saaray ma la isticmaalin ku kalaa la isticmaalay inkastoo xeerka la isticmaalayo afartii xeer waxaan ka hadlayaa afarta xeer ma aha waxa weeye leesh halka waxa laga saaray aqalkii sare oo dhan ma ku jiro waxay kale ka saareen kolka sharci uu baarlamaanku ansixiyo madaxweynaha saxeexa oo bulletin official lagu soo saaraa way ka saareen haddii ma garan anigu kolkaasi waxay ujeedaday ka leeyihiin guddoomiye cabdi xaashi xeerarkii afarta ahaa ee guddiga wadajirka ahi soo diyaariyey ayay leeyihiin waxa weeye kaan hadda ka doodayno oo qaarkood ba la ansixiyey waa sax saasay leeyihiin laakiin waxa weeye nuqulkii lagu soo diyaariyey wax badan buu waday ma ogtahay kolkaa anigu waxaan sheegayaa waa kaa nuqulkaas waa la iska tuuray mid cusub baa la samaystay oo aqalkaa gaaru ah waxa weeye waxaan u arkaa anigu kolkaa aqalkan ba inayna u baahnayn inuu la ansixiyo xeerarka taasaa ka muuqata dabcan hadda laba xeer oo ka mida waa la ansixiyey midna doodiisa ayaa socota mid kalena waa loo fadhiyaa marka maxaad samaynaysaan idinku annaga waxaan samaynayna waa taa aan idiin soo qoray waxaan qabaa waxa weeye sidaa uma socon karto shuruucda waa wada ansixinaa kolkaasi hadday ku talagaleen iyagu keligood inay ansixiyaan waa arrin yaniga u gaara kolkaa wax kalan ku odhanayaa ma jirto guddoomiye cabdi xaashi waxaa la leeyahay markii hore labada guddoon ee labada aqal ee baarlamanku guddiga iyagaa si wada jira u sameeyey markii dambena waxaa heshiiskoodu ahaa in si wada jira looga doodo cidda ka cagajiiday ee diiday in fadhi wada jira doodan loogu qabto cabdi xaashi bay ahayd warkaa wax ka jiraa ma jiro waxa weeye waa sax guddiga wadajirka waa wada samayn laakiin guddigii wadajirka ahaa wixii uu soo diyaariyey oo dhan 70% waa la tuuray laakiin afarta xeer iyaga oo qoraal kale oo diyaarsadeen ku darsanaya ayay dooda geliyeen aqalka guddigii yani waxa weeye aqalkii sare oo dhan waa laga tuuray kuma jiro kolkaa waa waxa iyagu gaar u wataan weeye tan ma kala hadashay guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoonkiisa arrintan waa ka wada hadalnay mar hore waanan u yeeray maxamed mursal akhirkii imu iman aanu eed ma saarayo isaga laakiin cid kalaa wada hadda doodii way socotaa sidaan hadaaye sheegayba doorashadii way soo dhowdahay sidaan hadday wax usii socdaan dalku xaggee u socdaa dalku waxaan rabaa anigu in shir wada jira oo dadka siyaasadda ku jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xataa axsaabtan yani siyaasiyiintu in laysu yimaado shir wada jira la galo oo kolkaasi wax lagu heshiiyey doorasho nooca lagu heshiiyo in la galo lana wada fuliyo waxaan ku leeyahay hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay yani wuxuu la hadlay dowlad goboleedyada shir baa mudaysan oo madaxweynuhu taariikhdiisa iyo laga sugayo inuu sheego madashii lagu shiri lahaa kow kaasi hadduu socdo kolkaa kan hadda socda oo weliba la yidhina ha la hakiyo ma garanayo wuxuu u socdo guddoomiye xeerarkan hadday ka soo gudbaan golaha shacbiga sow idinka idiima imaan doonaan oo doodiinna markaad kuma darsan kartaan haddee nalagumana talagelinba taladaba uguma jirno way ahayd in yani sidii guddigii wadajirkaa uu soo gudbiyey aqalkaas uu kaga doodo uu soo go-aamiyo uu kolkaa noo soo gudbiyo laakiin meesha wuxuuba ka saaray aqalkii sareba ma ku jiro dooda uguma jiro yani inay noo soo gudbiyaan ba xataa fikirkooda kuma jiro waxaad tale u jeedisay amaba aad fartay guddiga doorashooyinka in xeerarkan aan la isticmaali karin doorashooyinka soo socda guddiga arrintaas ma u gudbiseen oo ma kala hadasheen anigu qoraal saakaan qoray sababta waxa weeye wayba galeen oo way ansixiyeen waxay noo sheegeenna ma jiro iyagaa iska galay kolka de annaga waxaan u aragnaa inay naga maarmeen oo iyagu waxay doonaan samaynayaan taasina macquul ma su-aal kale waxay leedahay cabdi xaashi xeerarkan intii laga doodayeyba mudday soo socdeen oo hadda shalay baa waxaa la ansixiyey xeerkii kuraasta gobolada waqooyi marka wuxuu ka caraysan yahay qaabka loo dhigay habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi doodaas maxaad uga jawaabi lahayd waxba kama jirto ma daneeyo anigu waxaas ma daneeyo ya waxaase weeye aqalkii sareba meesha way ka saareen waxay ahayd inay aakhirka noo soo gudbiyaan kolka iyagoo ansixiyaan waxay doonaan ansixiyaan laakiin way ka saareen meesha